بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan hadalkan yar u jeedinayaa maalmahanba waxa saxaafadda iyo warbaahinta iyo bulshada dhexdeedaba isla dhex wareegaya arrimo loo adeegsanayo ololaha oo laga yaabo haddii aan bulshada loo cadayn ama si ballaaran loo tusin in ay tashuush dhalin karto. arrimahaasi waxaa ka mid ah arrimo waraaqo la soo daabacay oo la leeyahay xisbiyada qaarkood ama eedaynaya ama ka dhigayaba inay wax gaara si meel gaara iyo dana gaara leeyihiin, khudbado kale oo ay jeedinayaan siyaasiyiintu. arrimahaasaan yaro jecelaystay bal haddaba maadaama ay bulshada qaarkood khalkhal ku keeni karto in si waadaxa loo dhigo oo loo bayaamiyo. ta koowaad waxay ahayd maalmo dhexdii waxaa baraha internetka iyo facebooka la soo geliyay warqadan oo sida ay u qoran tahay ka sheekaynaysa inuu qoray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Yuusuf Garaad, uuna qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar, isaga oo dhowr arrimood faahfaahinaya. warqadda dad badan baa diiday oo ku dooday inay tahay warqad been abuura, tay doonto ha noqotay, laakiinse waxa u eegtay inay tahay faragelin, ama qofku been abuur ha noqoto ama runba ha noqotay, waa faragelin jamhuuriyadda Somaliland iyo dadkeeda iyo doorashadeedaba lagu soo faragelinayo. laakiin marka aad warqadda hoos u sii dhuuxdo, ingiriisi bay ku qorantay warqaddu, ee aad af ingiriisida ay ku qorantay aragto, waxaa horta kuu soo baxaya inaanay ka soo bixin xafiis run ah oo ay warqaddu luqaday ku qorantay waa luqad aad u hooseysa. waxaad odhan kartaa qof fasalka labaad ama fasalka saddexaad ee ingiriisida dhigtay ayaa qoray. ingiriisideedu waa jacbur, waxyaalo badan baa ka qaldan, laakiinse macnihii la doonaha u qornaato waa faragelin qaawanun. hadday warqaddu run tahay iyo hadday been abuur tahayba waa faragelin qaawan oo doorashada iyo khalkhalgelinteeda iyo ama magac ka dilisba hadday doonto ha noqoto xisbiyada qaarkoode ay loo geysanayo. waxaana uun marka dulucdeeda ku soo noqoto ay uun tilmaamaysaa xisbiga wadani ayay si u sheegaysaa. laakiinse anigu qiimeynteyda sameeyey warqadda waxaan ka soo qaaday inay been abuur tahay, wixii la doonaha looga jeeday. haddana in yar dabadeed waxaa soo baxday warqad kale oo la leeyahay waxaa qoray nin la yidhahdo Michael Keaton oo jamciyadda quruumaha ka dhexaysa, oo loo qorayo madaxweynaha federaalka Soomaaliya farmaajo. warqadaasi oo sida ay u qorantay markaad eegto ah warqad loogu jawaabayo codsi hore oo uu farmaajo soo qortay. haddaba sida loo dhigayo warqadda markaad luqadeeda eegto waa warqad aad u farshaxan wanaagsan lagu qoray, luqad wanaagsan bay ku qoran tahay, si wanaagsan baa loo qoray. hadday runtahay hadday been abuurtay taa anigu ma kala sheegi karo, laakiin waxaan ogahay inay farshaxanimada ay ku qoran tahay iyo warqadda ay ku qoran tahay iyo luqadda ay ku qoran tahayba ay tahay mid aad u heer sarreysa. warqaddu mabda'iyan waxa ay u qoran tahay inay jawaab ka bixinayso codsi hore oo farmaajo soo qortay oo uu leeyahay waa in cunuqabatayn la saaraa dad ka mida qaranka Somaliland oo madaxweynuhu ku jiro, oo uu ku jiro mudane Muuse Biixi iyo xisbiga kulmiye, si xisbiga wadani uu doorashada u helo, iyagana in maxkamad la taago oo dambiilyada dagaal lagu qaado. arrimahaasay warqaddu ka hadlaysaa, tay doonto ha noqoto. laakiinse aniga lafteedu weli waxaan u arkaa in ay tahay faragelin qaawan oo jamhuuriyaddeena lagu soo qaadayo, oo doorashada lagu faragelinayo, oo loo baahan yahay in si cilmiyeysan loogu jawaabo. hadday tahay dadka ay khusayso ama xisbiyada dee lagu sheegay warqadda, iyo hadday tahayba dowladnimadeennu inay ka hadashaa fiican. waxaan haddana arkay video clip laga soo duubay Muqdisho oo ay dad taageerayaal la yidhi waa taageerayaal ay intay isu tageen ay leeyihiin waxaan taageersanay xisbiga wadani arrintaa uu diiday. laakiinse iyada lafteedu waa faragelin kale oo anigu haddana aan u arko markaas waxaan isu wada geegeyso oo wadani iyo Muqdisho aad moodo in laysku kabayo oo aad layskugu sii kabayo, aan u arko dee inay faragelin aad u weyn tahay. waxaa kaloo haddana sii arkay video kale oo nin wariye ah oo Muqdisho ka soo jeeda laakiinse qurbaha degan oo la yidhaahdo Daahir Calasow uu duubay, oo isaga laftigiisu aad moodo inuu dariiqaa maraya. marka waxay bulshada ku dhex abuurtay waxaan oo dhami tuhun iyo shaki iyo buuq
iyo qolo waxaan wada rumaysatay oo le waxaan oo dhami ilaa waxaanoo dad iyo waxaanoo warqado mid ajnabi ka soo baxday mid Soomaali ka soo baxday iyo mid urur ka soo baxday oo isu tagay ma waxbaa jira oo meeshan qaldan oo ama xisbiga wadani ha noqoto ama shakhsiyaad kaleba ha noqotee mise waxaanoo dhamiba waa wada been abuuro yani waxa loogu talagalay in dacaayad iyo magac ka dilis marka arrintaatay shalay aniga waxaan la kulmay hawlwadeenno ka tirsan xisbiga wadani waan iska sheekaysanay shaah baan wada cabnay meel baan wada fadhiisanay waxbaan isweydiinay waxaan isla garanay war arrintan iyo arrimahan socdaa kuma fiicna in loo adeegsado doorashada waxa fiicanna in la dejiyo xamaasadda inaan dadka xamaasad aan meesha jirin la gelin oo markaa waxaan ku heshiinay nimanka aanu shalay kulannay in xitaa shir jiraayad wada qabanno oo niraano xamaasadda hoos loo dhigo arrimaha qaarkood hoos loo dhigo xisbigii yimaadaaba waa kii kale iyo inaan dadka ama unnecessary saarin ama aynaan xamaasad aan loo fadhiyin gelinin taa iyadoo ay meesha marayso ayuunbaan haddana dhegaystay khudbaddii musharaxa xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu ka jeediyey magaalada boorame runtii khudbaddaasi aniga way iga fajicisay aad iyo aad bay iga fajicisay laba arrimood baanay si weyn igaga fajicisay isagoo oo mudane ciro diidan oo ay dad badan oo kalena la diidan yihiin in waraaqaha la qoray iyo shirarkaa la qabtay iyo waxaa la sheegayaa ay wada been abuur yihiin la doonayay in lagu sumcad dilo xisbiga wadani haddana marka aad khudbaddii mudane ciro dhegaysatay ee shalay exactly khudbaddii ciro waxa ay ka turjumaysa warqaddan waxa ku qoran ee uu Michael Keaton la leeyahay uu qoray ee uu qoray farmaajo iyo khudbaddii mudane ciro isku mid bay ahaayeen warqaddan farmaajo loo qoray run ha noqoto ama been ha noqoto anigu taa ma caddaynayo waxay sheegaysaa in madaxda xisbiga kulmiye dambiilayaal dagaal lagu qaado oo caynka mudane ciro khudbaddiisii uu shalay ka jeediyey magaalada boorame exactly intan in leeg buu isna yidhi oo uu leeyahay waa dambiile muuse biixi waa kan anigu anoon lahayn warqaddani waa been ama waa run khudbadda mudane ciro iyo warqaddaa farmaajo loo qoray halkaa ku taala qofkii aan ingiriisi garanayna waxa anigu aan kula talin lahaa in af Soomaali loogu turjumo la tuso labadaa fariimood ee labada meelood ku qoran waa isku mid shakina waxa markaa keenaya hadalkan ma meel buu ka soo wada baxay waxaan anigu aan ku talin lahaa in xisbiga wadani iyo musharaxiisu ay si waadax ah u cadeeyaan khudbaddii uu mudane ciro ka jeediyey magaalada boorame iyo warqaddan Michael Keaton la leeyahay wuxuu u qoray farmaajo ee farmaajo uu ku codsanayo in dambiilo dagaal iyo cunaqabateyn lagu soo rogo xisbiga kulmiye hoggaankiisa iyo madaxweynaha Soomaaliland in la kala cadeeyo haddii ay kala cadaan weydo shakigu halkiisii buu ka sii soconayaa waanu ka sii ballaaranayaa waanu sii adkaanayaa anu taasaan qaba qodobka labaad khudbaddii shalay iga soo baxay wuxuu ahaa mudane ciro wuxuu soo hadal qaaday 2,000 xabaalood oo burco ku yaala anigu runtii waan ka naxay markuu kelmaddaa soo hadal qaaday muddo imika 2-3 wiig laga jooga ayaan burco siyaartay waxaa laygu casuumay xidhitaankii xafladdii jaamacadda magaalada burco oo la xidhayay waxaa meesha ugu tegey dhallinyaro aad u badan oo rag iyo dumar leh oo markan da'dooda sidaa u qiyaasay badankooda ay dhasheen 93-kii 94-kii 95-kii 96-kii dhallinyaradaasi jaamacaday ka wada baxday dhakhtarray qaar barteen qaar injineerray ahaayeen qaar social science ama culumta bulshaday burteen dhalinyarada wajigooda markaad eegto dad wada qurux badan oo rajo ka muuqatay ahaayeen oo doonayeen dalkooda iyo naftooda iyo ehelkoodba u shaqeeyaan dadkan 94-kii dhashay markaad maanta soo hadal qaaday tiraahdo 94-kii 2,000 xabaalood meel la dhigay anigu waxaan u arkaa in ay tahay in Soomaaliland cajaladeeda inaad rabto inaad dib u celiso dhalinyaradaas waxba kama oga 94 wax dhacayna kama oga wax la sameeyayna ma oga burca intii 94 ka dambeysay horumar badan bay samaysay waa xarunta baac mushtariga dalkeena waa meesha xoolaha lagu kala iibsado habeenkii aan anigu burca tagay 2 qof baan haynoon burca ku tagnay hudheelaanu seexanaanu ka weynay meel allaaliya meelan seexanaanu ka weynay markii dambe meel baa la noo bariyay in meel la naseexiyo waxa macnaheedu magaaladu way camirnayd baac mushtari baa ka socday dadku uu ku badnaa hudheeladii burco oo dhan sida u dhan yihiin way buuxeen markaad imika tirada 94-kii 2,000 xabaalood meesha galay fariinta hadalkaasi gudbinaya maxay tahay maxaa fariintaasi ay gudbinaysaa 2,000 xabaalood
dadkii walaalaha ahaa ee markii xurgufta ku dhex martay 94kii ee ka heshiiyey hore uga maray ee caruurtii 94kii dhaleen ay maanta dhakhtar yihiin ay injineer yihiin marka fariinta dib ugu celiso ee burca dhexdeeda miinada ku dhex tuurto ummadda dhexdeeda maxay tahay ma ka kacayba ma fidna cusub baa meesha aad ka abuuraysaa anu waxaan qabaa inuu arrinta apologize ka bixiyo waa haddii uu fahamsan yahay macnaha ay leedahay anigu qodobkaasi ayaan weliba aad ugu celinaya aniga xaggayga important ilaa oo ah in aan ololaha loo adeegsan arrin fidno hadday tahay kulmiye iyo hadday tahay cid iyo hadday tahay wadaniba inaan fidno loo adeegsan in wanaagga laga shaqeeyo xisbigii doonaha hele berri inteena kale riciyad bay noqonaa waan la shaqeynaa hadduu berri wadana helo dee waan la shaqeynaynaa hadduu cid helo waan la shaqeynaynaa hadduu kulmiye helona waan la shaqeynaynaa inteena kalena waan la wada shaqeynaynaa meesha ma kala lihiin cadow iyo yacni shisheeye lama kala ha dadku waa mid laakiin anigu khudbadda mudane cirro labada qodob ee aan sheegay ee ah khudbaddiisii iyo warqadda farmaajo loo qoray exactly kelmadaha iyo hadallada ku qoran waa isku mid aan meelna u kala leexan arrintaasi waa in caddeeyaa khudbadda labaad ee kale ah marka 2,000 oo xabaalood aad soo hadal qaado oo 94kii dhacay oo dad walaalo oo burca wada dega xurguf dhex martay aad soo xusuusiso fariinta aad wadaa maxay tahay haddii aad olole rabto ololahaaga ka soo bilow gambadhe iyo tukaraq iyo yagoori iyo ceelbu iyo midigale iyo xingalool iyo buraan iyo hadaaftimo intaa ka soo bilow xagga kale u kac oo looyacaddo iyo saylac iyo bariisle iyo banka gariyaad iyo cabdilqaadir iyo xariirad iyo boon iyo jiri dhulkaasoo dhan ka soo bilow hargeysa ka bilow raari buul tag ceel garda tag meel kasta tag yacni ololahaaga runta ayuu noqonayaa inaad laba xaafadooda meel wada degan bam yar ku dhex tuurto oo aad tiraahdo 2,000 xabaalood halkaa tagood qiiro istiraahdo dadka ku kici suuragal maaha talabaad ummaddeenu xumaan dambe iyo dhibaato dambe ka dhex dhacdaa arrintaasi anigu waxaan qabaa inay dhammaatay ummaddii way heshiisay kuwii dagaalka bilaabay iyo kuwii rabshada bilaabay intoodii badnaydba mama noolaba ilaahay u naxariisto dembigoodana allaha dhaaf kuwa ay dhaleen oo dhakhaatiiraa waddanka jooga injineerada ay dhaleen oo dalka dhisayaa jooga dhakhaatiirtii xoolahoo doonayna waddanka horumarayaan baa jooga dib haynoo celinina horaa loo soconaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu